nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiine isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nebigu yidhi awrka maad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaabuu nebigu ku yidhi isoo raac awrka lacagtiisii baan ku siinaya waa nin reer baadiya ma garanaya nebiga sal alla alay slam magaalada madiine wuxuu u soo galay awrka inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaabuu nebigu degdegay maadaamuu nebigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan horey lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyena aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanayaa markaabuu nebigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taaganoo awrkii ka iibinaya markaabuu nebigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nebigu ku yidhi war xaggee soonigii kale iibsanay ma ninkii reer baadiya yidhi igamaad iibsan markaabuu nebigu war waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsan markaabuu nebigu leey war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiine o dhan baa ku soo ururay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaabuu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanayna meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuula allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkan aad been u sheegi buu yidhi ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaa ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi